dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ceeb iyo yaxyax dhexgalgalanaysa kadib markii laba fadeexo oo isdabayaal ah muddo saacado gudaheed ah ay dhex dabaalatay. dowladda Soomaaliya ayaa saaxiibkeedii ugu waaweynaa ee asbuucan ay samaysatay ee Sacuudi Carabiya maantay ku fashilantay kadib markii ninkii ugu horeeyay ama ugu sareeyay ee Sacuudi Carabiya ay doondoonayeen oo ilaa Yemen ay u burburiyeen Soomaaliya inta la dhex keenay laba meelood laga dejiyay maca Muqdisho la keenay kadibna la sii qaaday taas oo lagu fashilinayo Sacuudigu in uusan Soomaaliya gacanta ku haynin. mar labaad Mareykanka ayaa wuxuu sheegay in galey urtay oo Soomaalida ku dhibi jiray isla galeydii urtay la sii xaday oo la gatay hawadana la gashaday. arrintaasi ayaa iyadana waxay ahayd fadeexad. qodobadaas ayaan barnaamijka ku falanqeynaynaa ee ku soo dhawaada qorane iyo sidoo kale falanqeyntiisa. aynu ku bilaabano Sacuudi Carabiya oo ah saaxiibka ugu fiican ee ayaamahan ay haysta dowladda federaalka ee Soomaaliya ee Imaaraadka xitaa uga wanaagsana ayaa maanta si weyn dowladda federaalka ee Soomaaliya ugu ceebowday Imaaraadka Carabta oo la xifaaltamaya Sacuudi Carabiyana waxa uu tusay in Soomaaliya aysan ahayn wadan la isku halay kara uguna awood badan yahay haddii Yemen looga soo adkaaday Imaaraadka ayagu ay Soomaaliya ku adkaan karaan. haddaba sidee wax u dhacay garabka gooni ogoosadka ah ee Imaaraadku uu taageero ee ka dagaalama Yemen ninka hogaamiyo oo lagu magacaabo al-Subaydi ayaa Aidid al-Subaydi ayaa lagu magacaabaa. ninkaasi ayaa waxaa la sheegay in dowladda federaalka ee Soomaaliya dhulkeeda uu soo galay kadib markii Yemen la burburiyay ee Sacuudigu shaqo badan uu ka qabtay oo uu ku noolaan waayay doon ayuu uga soo qaxay halkaasi. waxa uu yimid magaalada Berbera oo Sacuudi Carabiya asagoo ka cararaya Imaaraadkuna ay ka warayeen waxaana arrimahaas ka shaqeynayay Imaaraadka shakhsiyaadka isbayga ah ama jaajuusiinta u shaqeeya iyo sidoo kale Imaaraadka Carabta. kadib ayaa waxa dhacday in Imaaraadka Carabta markii uu Berbera keenay doontana ku keenay diyaarad u khaas ah uu ninkaas ku soo qaaday. Imaaraadku waa uu awooday in diyaaradaasi inta qaado oo Dubai ka dejiyo laakiin si uu u ful xumeeyo Soomaaliya una tusiyo Sacuudiga inaysan gacan ku haynin isla markaana ay uga awood badan yihiin Soomaaliya hay'adaha dhexdeeda galangalna ay ku leeyihiin waxay doonaan ay ka dhex samaysan karaan ayuu Imaaraadka Carabta asagoo tusaalahaasi bixinaya ninkii halkaasi ka soo qaaday Yemanta qaybta gooni goosadka ah madaxda u ahaa ee Sacuudigu raadinayay waxa uuna ka soo dejiyay magaalada Muqdisho oo muddo hal saac uu ku dhaxayay qada laga siiyay shaah laga siiyay say tahay garoonka magaalada Muqdisho ugu dhex baashaalay kadibna halkaasi ayaa laga qaaday oo Abu Dubai garoon ku yaala oo ciidamo military leeyihiin ayaa laga dejiyay. ujeedada waxaan dhan loo sameynayay ayaa waxay ahayd tusaale yar oo la siinayay Imaaraadka Carabta ah in Imaaraad waa Sacuudi Carabiya la siinayay oo ah in Imaaraadka Carabtu uu gacanta ku haysto Soomaaliya waxa uu doonana uu ka samaysan karo isla markaana saaxiibtinimada la jirayo baryahan ay tahay mid aan qoto dheereen ama hataa haddii Soomaaliya dhexdeeda la isla soo galo ay ku awood badan yihiin maadaama Imaaraadku maamul goboleedyada dalka uu haysto saaxiibo badan oo ku dhex samaysto. haddaba arrintani dowladda Soomaaliya ayaa maanta ku soo baraarugtay oo Imaaraadka oo la sheegaysay in ay dhinaciisa doonayso inay ka baxdo oo dhanka Sacuudiga aado Sacuudigiina maantay lagu fashiliyay shaqadii ay doonayeen dowladdu in macnaha ay saaxiibtinimada ay isugu muujiyaan. dowladda Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u yeeray socdaalka iyo jinsiyadaha waxa ayna sheegeen arrintaas inaysan waxba ka ogeyn. sidoo kale hay'adda duulimaadka rayidka ninka ugu sareeya ayaa la wacay waxa uu sheegay asagu inaysan waxba ka ogeyn. haddaba sidee waxaan wax u dhaceen diyaaradda dhan ee Soomaaliya labada jeer ka degtay dowladda Soomaaliya wax xog ah kama aysan gebi ahaanteedba lama soo wargelin looma sheegin. arrintan waxay ku qotontaa horay Soomaaliya heshiisyo ay saxiixday oo aysan ka fiirsanin taasi oo dhigaya Imaaraadka Carabta saldhigyada uu leeyahay arrimihiisa diblomaasiyadda ciidamada in dowladda Soomaaliya aysan dhexgeli karin. marka ay Berbera diyaaradda ka dejinayeen ee ka soo qaadayeen waxa qaadaysay diyaarad arrimo ciidan u diiwaan gashan iyo amni inay ka shaqeynayso. Muqdisho waxa ka soo dejisay diyaaraddaasi amniga iyo diblomaasiyadda qaabilsan oo Imaaraadka Carabta leeyahay horena heshiis u haysata ah in aan la weydii karin meesha u socoto inaan la weydii karin ujeedada u socoto inaan la weydii karin cidda saaran iyo waxay tahay gebi ahaanteedba.
ayna isticmaali karto dhulka Soomaaliya garoomadeeda hay-adda duulista hawadana amar lagu siiyay in ay ogolaato. sidaas daraadeed iyagoo ninka ugu weynaa el raadinaya wada ay waxay kasoo degeen garoonka magaalada Muqdisho meel gooniyo runway ah oo imaaraadka iyo inta wadamada reer galbeedka ay isticmaalaan oo gooni loo siiyay. waxay wadeen ninka u sareeyay el raadinaya oo dowladda Soomaaliya xitaa ay sheegtay ayna taageerayso in la qabanayo. looma sheegin oo heshiisku muusan ahayn in loo sheego. waa lagu dul shaqaystay waxa rabaa la sameeyay. diyaaradaasina ugu dambeystii waxa laga dejiyay Dubai garoon military oo ku yaala. ujeedada ugu weyn ee Muqdisho loogu sadjinaya ayaa waxay tahay in la bixiyo tusaalahaasi sababtoo ah waxa laga qaadi karay Berbera waxaana la geyn karay Imaaraadka Carabta. fashil dowladnimo heshiis hore ee la galay oo aan la ogeyn waxa uu yahay oo aan laga fiirsanin hadda aan laga laaban karin ay dowladda Soomaaliya dhexda u taagan tahay. taasna waa ceeb dowladnimo wayna adag tahay Sacuudi Arabiya in uu aamino dowladda federaalka ee Soomaaliya maadaama uu og yahay in waxyaabaha noocan laga dhex samaysan karo. markana dekada magaalada Muqdisho baqaar weyn oo ku dhex yaalay oo galeyda urtay ee reer galbeedka iyo Mareykanku keenaan lagu aruurin jiray taasoo ahayd mid lagu dhibi jiray shacabka Soomaaliyeed ee beeraleyda ah marka beeraha ay u soo go'ayaan la keeni jiray galeydaasi si dalaga ay samaystaan dhulka u gala ama uu suuq u yeelan waayo ayaa la burburiyay. ujeedada dowladda u burburisay waan ku soo laaban doonaa laakiin marka hore baqaarkan shaqada uu qaban jiray saameyn nooc ah ayuu shacabka Soomaaliyeed ku lahaa. baqaarkani waxaa la keeni jiray galey laga keenay dalka dibadiisa gaar ahaan Yurub iyo Amerika oo laga soo gaday. hay-adda WFP ayaa lacagaha bixin jirtay iyagoo dalalka waaweyn dadka u dhashay ee beeraleyda ah laga soo iibin jiray oo lacagta la sii jiray galeyda nooca baaba ah ee sii dhiman rabta baaluhuna ay galayaan. sidaas daraadeed waa la soo qaadi jiray iyadoo marka koowaad la fiirin jiray dhaqaalaha in dadkaasi la siiyo mar kale waxaa la keeni jiray Soomaaliya. haddana waxaa lagu soo aatin jiray galeydaasi in la keeno waqtiga beeraha Soomaaliya ay soo go'ayaan ee dadka Soomaaliyeed wixii ay beerteen 6 bilood ku rafaadayeen inta la soo gooyo la rabo in la iibiyo. tan ayaa la keeni jiray suuqa loogu hormarin jiray. waxaa dhici jirtay dadka Soomaaliyeed wixii ay waqti ku soo bixiyeen mid ka jaban haddana in kastoo la tahay laakiin la magaca suuqa in la geliyo sidaas daraadeedna la waayo wax ka iibsada Soomaalida wixii ay samaysteen ee beeraleyda ah. sidaasna beero badan ku basbeeleen dad badan ku hanti beeleen isla ugu dambeystina ay ka niyad jabeen inay beero samaystaan. shaqadii noocaas ee la qaban jiray dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay lahayd baqaarka lagu kaydinayo oo ay siisay WFP oo ay u siisay contract aan waqti loo yeelin. dowladda Soomaaliya ayaa u sheegtay dekada magaalada Muqdisho iyadoo la bilaarinayo shaqo badan laga qabanayo container meel la dhigo loo baahan yahay in baqaarkan muhiim ay tahay in dekada laga dhex saaro lana burburiyo xitaa haddii WFP u baahan tahay meel kale loo geyn karo laakiin waa ay diideen waana ay kasoo horjeesteen. ugu dambeystii warqad ayaa loo soo diray lagu sheegayo in January la burburin doono waana la burburiyay. Mareykanka WFP ma hadasho oo gadaal ka riixayay ayaa xal hadlay wuxuuna sheegay in 72,000 oo tan oo ah adeeg bulsho danyar ah loogu talagalay cunto in lagu siiyo oo cuntadii taalo la xaday la qaatay lana gatay. waa suurtagal lama diidi karo laakiin muhiimaddu waxay tahay baqaarkiina la burburiyay ayuu ku daray. laakiin muhiimaddu waxay tahay baqaarka la burburiyay in dadka Soomaaliyeed iyo dekada Soomaaliyeed iyo horumarkeeda muhiim u ahay waxa la xadayna qofkii xaday kuleetaba la weydiin doono. waxaa kaloo meesha ku jira in Mareykanku meesha dagaal adag u kula jiro ninka wasiirka dekadaha Soomaaliya ah madaxana furan oo ku sheego inuu gacan saar leeyahay si fiican uu dhow yahay Turkiga oo aysan jeclaysanin. qodobadaas iyo qodobo kale iyo kuwa si waaweyn ayay halkan keeni doontaa markasta sheekare saaxiibadan ugu muuqaalkeen.